بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد Soomaali gaar ahaan especially kuwa degan wadamada reer galbeedka qaxootiga ku ah especially Sweden saa ogtiin bishii labaad 11keeda shir baa ka dhacay wuxuu ka dhaxeeyay qoladan dowladda xukunta afarta cusbiya hadda ka horna waxyaabihii ay go'aan ku gaareen oo waxa ku gaareen in dadka sharciyada la siinayo laga qaado aan la siinayo laga dhigo permanent aan laga dhigin mid joogta laga dhigin wax mid la dhigo ku meel gaara waagaas way isku raaceen oo waxay yiraahdeen suuragal ma noqon karto in la siiyo saac laakiin hadda waxa noqotay inay mar labaad iska wada hadleen 11 bisha oo la yiraahdo arinta in sharciyada loo bedelo deganaanshaha joogtada loo bedelo mid ku meel gaara suurtagal maaha waxayna abuuraysaa khalalaase yani wax walba dhinaca ammaanka iyo wax kasta ninkii odaga aad garanayseen oo cunsuriga ahaa oo Jimmy Oxon la dhahi jiray aad iyo aad buu booday talooyinkaasna wuxuu yiri waa khasab in laga galo oo la sidii loo in ku hadalay laga sameeyo afartan xusbi oo kale oo masaakiin saddexda kale oo xusbi masaakiinta hadba meel dhacana waa iyagu ku baqaan moogta marka waxa jirta waxaan aqsiin ujeedada dhan waxa weeye adigu maxaa ku dana ma rabtaa inaad meesha waddanka sii joogtid inaad wax ka noqotid inaad ku noolaatid inaad shaqo heshid inaad carruurtaada iyo naftaada hagaajisid codee diyaar garoona waxa uu codaynayso haddana aakhir xusbi Halima xagee u codaysay hebel baan u codaynayaa wiilkayga halka ku jiray waxa ka bood indiviid adiga maxaa ku dana waa inaad ogaataa waxa ku dana waxa ku wanaagsan aakhir xusbi walba fikirkiisa kuwa waxa neceb kuwa dadkaan samee kii wanaagsan aakhir waxa haystaa 6 bilood baa haystaa ku waas chance haysta si aakhiri fahan hadaadan garanayna la soco meesha anaga kaaga soo sameeyna insha Allah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hal coday Soomaaliya